Soomaaliya oo walaaleen Soomaaliya mar walba garab taagan. 2011 yılından beri Somali halkımıza, kardeşlerimize yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yetimhanelerde yemek çıkartıyoruz. 2011 ilaa hadda mar walba waxaan garab taaganahay walaaleen Soomaaliya dhan walba caawimaad ay nooga baahan yihiin. Waxaan kala sameynaa aqoontana waxaan u sameynaa cunto. Yardım gemileri gönderiyoruz. Waxaan kala ogtiin inaan u soo diri jirnay oo haddana u soo diri doono maraakiib cunto oo gargaar. Ve gördüğünüz gibi bugün de Ramazan'da yardım kolileri dağıtıyoruz. Bugün toplamda 2000 tane yardım kolisini Mogadishu'da dağıtacağız. Haddana sida aan wada ognahay u wada jeedno waxaan qaybinaynaa maaragtay afurin oo loogu talagalay bisha Ramadaan inay dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan kaasoo gaaraya cadadkiisa 2000. Bu çalışmalarda bizi destekleyen Sayın Büyükelçimiz Olgan Bekar'a ve Sayın Banadır Valimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Waxaa kaloo mar walba intaas maaragtay garab taagnaay oo na abaabulayay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo safiirka Turkiga oo u fadhiyo waddanka Soomaaliya. Sayın Valimizin destekleriyle ujeedaan waxaan joognaa Gubadley oo runtii aan u nimid in dad Soomaaliyeed la afuriyo hay'adda Bisha Cas ee Turkida oo nala joogto iyo dalkan walaalana Turkigana ay tahay deeq ay ugu talagaleen shacabka Soomaaliyeed iyagoo ka jawaabay baaqii gobolka Banaadir ee ahaa barnaamijkii taakulo marka indhihiina ujeedaan maanta halkana waxaa nala joogo dad tiro badan oo ayagana raashinka afurka la siinayo mar kale aan u mahadcelinaynaa shacabka Gubadley oo runtii si hagar la'aan noo soo dhaweeyay oo ujeedaan sida nidaamka leh oo ay raashinkii loogu talagalay u qaybsanayaan iyadoo wax dhiba jirin taasna waxaa mahaddeeda leh maamulka Gubadley oo runtii dadaal wanaagsan u sameeyay sidii shacabka wax loo gaarsiin lahaa marka bahda saxaafadda mar kale bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Waxaa farxad inoo ah maanta inaan halkan wada joogno gudoomiyihii gobolka Banaadir ah duqa magaalada Muqdisho iyo walaaleen Soomaaliyeed inaan halkan la joogno iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan farxad inoo tahay. Türk Kızılay'ın desteği ve Benadir Valiliğinin işbirliğiyle bugün ihtiyaç sahibi olan Somalili kardeşlerimize gıda dağıtımında bulunacağız. Waxaan halkan raashin uga qaybinaynaa dadka walaalaheena u baahan gargaarka. Bugün burada 700 adet gıda paketi dağıtacağız. Fakat Türk Kızılay'ı bu paket sadece burada dağıtmayacak. Mogadishu'nun diğer semtlerinde de gıda dağıtımında bulunacak. Toplam sayının 2000 civarında olmasını öngörüyoruz. Waxaan rajaynaynaa guud ahaan magaalada Muqdisho qaybaheeda kala gedisan Bisha Cas ee Turkiga inay ka qaybin doonto ilaa 2000 oo paket oo raashin ah. Halkan hadda aan joognana waxaa la qaybin doonaa ilaa 700 oo qof yaa loo qaybin doonaa raashin guud ahaan magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan waxaa lagu qaybinayaa ilaa 2000 oo qof. Ramazan boyunca Somalili kardeşlerimize gıda dağıtımına devam edeceğiz. İftar yemekleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro waxaan sii wadaynaa inaan walaaleenna Soomaaliyeed u qaybino raashin aan u samayno afur. Bugünkü organizasyona verdikleri destek için Türk Kızılay'ına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Benadir Valiliğine de bu organizasyonun gerçekleşmesini sağladığı için de teşekkür ediyorum. Waxaan hortiina aan ugu mahadcelinayaa Bisha Cas ee Turkiga oo raashinkan maanta halkan ka qaybinaysa. Sidoo kale waxaa mahad gaar ah u jeedinayaa maamulka gobolka. waxaa sharaf weyn noo ah maanta in walaalahan dalka Turkiga ay nooga soo jawaabeen baaqeena ahaa in bulshada bisha barakeysan ee Ramadaan loo baahan yahay gurmad degdeg ah xaaladaha jira dartood baaqii aan ku baaqnay taakulana in safiirkeena qaaliga ee walaalaha aan nahay inuu si degdeg uga soo jawaabay oo ilaa 2000 oo qoys ugu talagaleen raashin bisha barakeysan Ramadaan iyadana farxad kale noo tahay
bisha cas ee Turkiga howlo badan bay ka qabataa magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka oo dhan waana hay'ad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed marka shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in bisha cas ee Turkiga iyo hay'adaha Turkiga ee ka howlgala dalka la soo dhaweeyo loola shaqeeyo si walaaltinimo ah garab lagu siiyo waayo qofka walaalka ah waa qofka kuu imaado waqtiga ugu baahi badan tahay si walaaltinimona kula istaag oo ujeedaan safiirkii Turkiga ayaa degmadii Kaaraan la jooga bulshadii dhex jooga intaasna waxay tahay inuu tuso dareenkiisa walaaltinimo iyo kalgacalka uu shacabkan Soomaaliyeed u qabo annaga maamul gobol Banaadir ahaana waxayna gelinaysaa farxad aad u weyn arrintan ku saabsan marka mar kale dhammaan bulshada ka faa'iideysteen waxaan leenahay loo soo duceeyo walaalahan Turkiga in mucaawanada walow ay yartahay haddana waa tusaale in qofka walaalka qofka kuu imaado waxna kuu qabto soo dhaxgala inuu ka fiican yahay qofka kale marka aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh